فؤاد شنقول wuxuu joogi jiray kaniisad oo ku taalo in xooahay meesha la yiraahdo Sweden oo fayl ugu jiray badar soo uga helo marka ninkii saasahay oo kaniisad ugu jiray fayl inuu inta kaniisadii ku soo fashilmo oo inta dalkaaga yimaado adiga kugu hogaamiyo in adeero aqli miya waxaas kuwa dhahaya macawisleyda mooriyaan dhahaya ogow waa argagaxisadii oo midab kala wadato wa qabaa'ila la taarafu waxa loogu talagalay in gabdhaha lagu doonto leesku garto diinka marka la joogo dadku islaana ma yaqaano nin walbana kitaab gaar ah oo wata aan isu dhigan isla fiirinina ka yeelima dawladii iyo shacabkii kacdoon shacabaa dhacay dawladina waa taageerta dawladuna waa cusub tahayo isla markii ku dhawaaqada ila ra'iisul wasaarihi oo yiraahdo anigu jinnaan ku rabaa madaxweynihiina oo yiraahdo shabaab hal sana isla dhaafi mayna taas waligeer ma dhacin dawladda Mareykankana gacanaan idinku sii haynaa ay tiraahdo oo adduunka ugu awood badneedood idinku iiga xodogaashantiin ma la isla helay saddexdii hadaad caalam ka heshay shacab ka heshay dawladii ay ogolaatay nuuc shabaab ku fakakariyo ma jirta hadaad fiiriseen hadii aanan la shaqeeyay idinka ka dhiman marka idinka jaaliyadihiin iyo ragiina Soomaaliya ma taqaana in dibadda ka beeli jira oo marna abaarta u gurma jiray marna siyaasadda u gurma jiray mar walba ma taqaana in la shansa jiray inaad afareysiina la rabaa hadaad marka afar ku naqatiin waxay naqay marka sayhuzamul jam'u wa yuwalluna duburayna qay argagaxisadi dabaday jeeday waana laga adkaada argagaxisadi Afghanistan iyo laga soo diray meeshay ka timiday u naqay amba waa dhimee dadka macawisleyda ka cabsaaya oo macawisleyda ilaa ma ogta waxa jira wax la yiraahdo war ku macawisleyda hayo waagi hore mooriyaan la dhihi jira ama sidii naqdaan dad qabaa jiree ma ogta dawlad goboleedka ayaa hadda mas'uul ka ah waagi hore dawlad goboleed ma qabi jirin annaga marka systemka dawlad goboleedka oo hadda aan qabno oo dalka nooga dhisan deegaan walba dawlad goboleedkaas maareeyaha asiga lagu la xisaabtama dawladda dhaxana waxa laga rabaa dadkaas inay ciidamada dib ugu celiso oo ay ma taqaana ay ciidankeera ku darato marka waxaas aad arkaysiin kuwa dhahaya macawisleyda mooriyaan dhahaya ogow waa argagaxisadii oo midab kala wadato diinka marka la joogo dadku islaana ma yaqaano nin walbana kitaab gaar ah oo wata aan isu dhigan isla fiirinina ka yeelima kiisaad oo inta shaqfasha ku wata kaagiyad wadata warniyahow waxaad wada kana ka saxan hadaa tiraado ma ka yeelaya quraanna waa la iskala tagay nin walba asaa wax qorta hadii quraanka lagu dhaqmaayo wala kala heri lahay ilaa asiga waxna lagu dari ma kara waxna laga ma dhimi karo laakiin carabtaana inta la aado aan walba asagoo wixiisa gudgududkiisa wato ku imaaha marka iyaamaan aniga marka midowga maxkamadaha amba ICU ayaan marka wada xaajood kula galna meesha la yiraahdo anagoo dawladii
hore Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariiste aan Suudaan wada xaajood ku galan markaan ku galna marka waxaana wata marka anaga hormood noo ahaa Shariif Xasan gudoomiyihii baarlamaanka ana nabad keenahay meel noo fadhiistoonay nimankan anigu way fahmayna idinku hayga carqaladayna saddex maalmood sidii aan meel u fadhin oo asiga iyagu ay u wada hadlaayeen ay noo wacdaayeen oo annaga ay diin aayada quraana iyo axaadiis noogu wadeen Shariif Xasan oonan meesha ay iyagu wadaan oona geey karina meel gaaban kaliya oo ka wadi aan gacanta taag dhibaatayna ku tahay inaan gacanta taagna asiga dhibaatay ku tahay gacanta markaan taagta marka gacma dheere wasiirka arrimaha gudaha gacma dheere ayuu marka oo siiyo asna gacanta iga daba taagdo oo siiyo salaad kana ka roono oo siiyo kadib in la siiyo ay naqat horta waxaan iri aniga marka waxaan ku dhashay meel la yiraahdo ma haday tuulo miir tuuga la yiraahdo tuuladaas marka madaxweyne Maxamed Siyaad Barra marka miir taqwa u baxshay asagoo tuugada la diiday markaasaan waxaan iri quraanka miir tuugi iyo ka carabta lagu barta horta hay isdhaamaaneen ama hal mar quraanka miir tuuga la dhageysan meeshaasan aan horta ka bilaabo markaasaan wax iska celin marka quraanka miir tuugi markaan u akhriyo wala tulqu bi aydiikum ila tahlukati aanir gacmihiina dhibaato ku doonaysiin aanir ay waxay yiraahdeen sababul manzuulku saas ma ahan markaasaan waxaan iri aayado expire ma aha shalay kuway ku soo degtay waaga dul saaranta kuwii shalayadna weegtiin idinku doodi markay meeshaas nooga bilaabat ayaa horta waxaan ka daba tagnay in ayna heshiis bal qaada kare ileen raggaana ku jira ma ogtaa raggan oo candagooyaha oo hadda waaga diriray oo dagaalku kaliya inuu socdo rabo oo aan nabad Soomaaliya u rabin ayaa ku dhex jira marka iyaga amar soo baxa meesha ku soo kala taga baydhabaan qabaysayna ay leeyihiin baydhabaan qabsayna wax yaraa noo dhiman ka soo taga ay leeyihiin waxay diideen in heshiis oo laba dhinac oo dhacyo si wax loo qaybsado ay diideen adiga ala kulli xaalan sidii lagu soo kala tagay marka waxaan rabaa diinta inaan ku hormaro oo aan wax yar ka ifiica wada idoo culimadu raali iga naqayso ilaa aniga markaan quraanka aan fasirayo ya ayyuhalladina aamanu taqullaha kama bilaabo maxaa yeelay culimada dhan ogoltaas culimadu waxay qaarkeed dhihi weeyhi wax argagixisada u daranay sheegi weeyhi marka positionkaas inaad qaadato waay adigu kii kale iyaga wadee aniga marmar waxaan iraahdaa dadku indhahay taagaane waxaan iraa islaamku saddex waay islaamka hal waay ay ku dhahayaan ma ogtaa saddex waayaan iraa kuwa waxa waaye wasaabiquuna alawwaluuna min almuhaajiriin kuwa nabi maxamed la haajire oo Makka ka tagay oo inta baxay oo Sayyid Abubakar ugu horeeyay kuwi koobaad waayo haajirka u dhaqtam wal ansaarina waxa waaye kuwi Madiina loogu tagayo welcome iyaga yiriyo soo dhaweeyay
laba soomaan ka takoori ayad quraana way waxaan akhraa ninki wax ka bedeli kara waa sheegi dooyay marka wasaabiquna alawwaluna min almuhaajiriin kuwa waay wal ansari kuwa wal kamiirina waa kuwa madiina loogu tagay walladina tabacuhumna anaga waay taabica la yiraahdo laakiin anaga iyagiyaan raacsana marka saddexdaas markaan joogno hadii marka walladina tabacuhum aan iskula jirno oo la raba in rasuulkii iyo asxaabtiisii iyo ansaarti la raaco yaa u horeeyay walladina tabacuhum waay yaa u horeeyay aniga hadda haddaan tirsado adooga sideedaadaan ka hela diin haddaan salaad cali jeella ka bilaabo ilaa fiqiya waagi hore la dhihi jira man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi diin yku abtirsada haddii faqay lagu yiraa oo fiqi lagu yiraa wadaad adigaa ugu horeeyay markay sheekh iyo joogto iyo macallin iyo kuwa damba waay waagi hore fiqiya la dhihi jira meesha marka waxaad ka arkay ninka la yiraahdo shongolo adoogiisaan saaxiib ahayno kubadda jawhar oo ka ciyaari jiray ninka madaxda u ahoo ahaa marka fuaada asiga la yiraahdo shongolo intuu diin ka heliyo haddii loo abtiriyo fuaad shongolo meesha uu asoo abtirsigiisa oo fiqi ka hela amba sheekh ka hela la arki ma waxaa ku soo hira cali dheere علي محمد علي وحاسة اللي يرى واركته ميلو شيك سوق لا ما ركته هلك أصر رأي وحال يرى أحمد هو هاي أحمد ديريا اللي يرى أدوغي سواء قام باجمال واي وحو كل شيء أنا أركجر وحانكو أركجر الشبيل مركي قلا في مستحيل ميلو دحيسه أو باربا جمال اللي يرى هو كل شيء سو فهمي ميزي رجعني مضاضي كسعد أنا وحديني هي وطن مجد مركب منك أصوص صعده رجع صوص صعده دينا وضناله دتك سود ويا ما والا ما سيجا والا دتك سود ويهاي واي هرت dhibaatadu warniyo adigu intee diin ka keenta goorma adooga diin helay intaad ka soo baratay male fuaad shongole wuxuu joogi jiray kaniisad oo ku taalo in xoo ahay meesha la yiraahdo Sweden oo fayl ugu jiray badar soo uga helay marka ninka saas ahay oo kaniisad ugu jiray fayl inuu inta kaniisadii ku soo fashilmo oo inta dalkaaga yimaado adiga kugu hogaamiyo in adeero aqli miya waxaas ilaahan idinku dhaarshay waxaas waaye waxa anaga sharafteena iyo karaamadeen meel uga dhacay soo la yacmaneen niman isla yacaw leemaneen markaasay diriski kugu diraaya xiriirkii iyagu qaada Itoobiya ku duulay Itoobiya markay ku duulaan koox Soomaaliyeed oo argagaxisaha xidka ka soo gudubtay xiriirkaas adoo ku saameeya iyaga ka turjuma Kenya galay Djibouti galay iyaga marka ka wakiila asa siyaasadii adiga ku jadwal gareeyahay